والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة iyo cilaaqada ay la leedahay aadamaha qofka mu'minka ee muwaxidka ah markuu shahaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhawaaqo cibaadadu raadinta leeg bay qofka ku sameeysaa. intaasaynu bal eegi doonaa aayado quraana ahadiith nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo wixii nagu soo dhaceen ku dari karnaa inuu ku dardar hadii Ilaahay aslan diinta waxa diin la yiraahdo diin religion ay gaadaan religion diin saddex wax bay isku daydaa inay diin ka jawaabto aslan marka la akhrinayo waxa la yiraahdo cilmiga la yiraahdo falsafat al-adyan diimaha ana aqoon qaadiye bismillah diimuhu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo daadajiyay saddex arrimood bay isku dayaan inay ka jawaabaan. koow cilaaqada qofka iyo Ilaahay ka dhaxaysa aqligaaga kuma keeni karo inaad adigu cilaaqada aad weelaysid ama aad qaab u yeeshid. marka waa inay jirtaa quwad ka baxsan ka aqoon badan oo Ilaahay ah oo ku sheegta sida iyo caabud laabud kuma keeni karta aqligaaga adigu oo aqligaaga mujarradka ah ma oran karo arrinkan Ilaahay baa jecel waa yeelaya arrinkan Ilaahay baa nacab waan ka istaagaya ma keeni karo in alaalinta doonto aqoonyahan noqo abqariga doonto noqo. marka diin aslan wuxuu ka shaqeeyaa oo isku dayaa inuu ka jawaabo tartiib العلاقة adiga iyo Ilaahay cilaaqada idinka dhaxaysa ayuu nidaamiyaa. koob labo diintu waxay markay qodobka ka soo gudubto waxay nidaamisaa adiga iyo aadamaha aad wada nooshihiin adiga iyo aadamaha aad wada nooshihiin ama isku diin noqda ama kala diin noqda. cilaaqa taasna waa cilaaqa adiga iyo aadamaha kula jooga ma curin kartid adigu waxaad doonto inaad ka yeeshid aadamaha. hebel waan jecelahay hebel waan ka helaa waan jeclaanaya hebel waanu isku guba kaayo baxdo waan nabcaanaya waa shahwaani baatay hawaa'i afara'ayta man ittaba'a ilaahahu hawaa may waxay baa oranaya adiga iyo aadamaha kula midka ah waa maha cilaaqada idinka dhaxaysa. ifahmasa saddex diintu waxay ka jawaabaysaa adiga iyo adiga cilaaqada idinka dhaxaysa adiga iyo adiga. Allahu akbar kalima ghaaliya dareemaha guntaada hoose ka guuxaya adiga la hawsiga laabtaada damiirkaaga isrogrogahaya hankaaga iyo himiladaada adiga qarsoon cidina aanay kula ogeyn warwarka marba sariirta dhan ku rogahaya walbahaarka naxdinta cabsida waswaaska shakiga waxa soo idil ayay diintani doontaa inay daweyso. marka kelmadda diin markaad maqashid waa mas'alo ballaaran oo aad u durugsan oo saddexda haama ee waaweyn cilaaqatuka maca rabbik cilaaqatuka maca ibn aadam cilaaqatuka maca nafsik. qaar baa durkiya oo xagal afaraad u sameeya saddexda xagal afaraad qaar baa u sameeya oo maxay yiraahdeen adiga iyo kownka aljamaad alxayawaan almaa البحر البر البيئة environment علاقة دير لها نسا كيدت كلهم بينو جوينا سما ساينو دحول ayno ay wadanka dhuxul ugu wada shidano dambi ma yahay inaynu geedka galoolkiyo geedka oo dhan la dhameeya dambi miyuu yahay mise wada shaqaysanaya dee
diintaa ka jawaabaysa adiga iyo rabbigaaga adiga iyo aadamaha adiga iyo kownku ilaahay u goglay kownkan aad ku nooshahay ilaahay u goglay adiga inuu kugu martiqaado kownkan التسخير إمسا القرآن كو أخردان إلهي بقى إذن سخيري التسخير وحويا قضبيا لو سوغو جريتان كإلهي قولوين كديدة جريتان كإلهي مركا عقليا لولا دوديو إلى القرآن كل ما دودي كرتدو كما آمسان القرآن كيه بحد كل دودي عقلي بو إلهي كديدي أدنا ورا مركا عقلي وهرقيسة سوما gaalkii ugu weynaaye Britishka ahaa ugu weynaaye dhowr iyo 30 sano ka shaqeynayay laha ilaahay ma jiro ayuu ilaahay qadiray umrigiisa intii ugu dambayso inuu kitaab qoro there is god ayuu kitaabka magaca ilaah horta ilaah waa jiraa horta ilaah waa jiraa markaas ay ardaydiis yiraahdeen waad gabowdo malaha waad baqaysaa wasi dhimana sayid ma baqday bay ku yiraahdeen war bacale soo nagi heshiis ku haynaanay waxba jirin war horta buu yiraahdo aakhira jirtay waliid ma oranayo waa la soo saaray taamaan gaarin buu wali taamaan gaarin laakiin kownkan inuu ilaah jiro ayaan ku gaaray buu bil aqli ayaan ku helay marka sayidada soo bandhig tan imka taskhiirkan idin sheegayo ayuu daliil uga dhigtay tusaale soo qaatay tusaale ahadkiin buu yiri haddii hudeel lagu casumo hudeeladan hudeel kamid lagu casumaadi qolka hudeel kamida kadibna hudeelkii markaad gashid wax allaala wixii ay naftaadu jecleed aad hudeelka ka heshid gooshii aad ugu jecleed midabkii la mariyay midabkaad ugu jeclaa uu noqdo dharkaad ku seexatay lagu diyaar dharkaad ugu jecleed uu noqdo buugaagta hareeraha la dhigay buugaagtaad jecleed akhrida uu noqdo cuntada la soo bandhigay taad ugu jecleed adduunka cunto aad maxay tolo noqoto wax allaala wixii aad jecleed oo idin hadaad qolka ku aragtid maxaa markaa maskaxaada ku soo dhacay buu waxa ku soo dhacay buu qofku yaqaana oo meelaha aad u janjeedo og ayaa sii goglay meesha markaa maskaxdaasa ku soo dhacaysa buu soo maaha waa ayuu yiri ninka cajaladaad ugu jeceshay dhageysato ku sii gelinay qolka qofku yaqaan buu kownkan aynu nimid buu yirisna wax walba inoo diyaariyay saynu u jeclayn inagu yaan uga heli lahayn qof ina yaqaana waa inuu diyaariyay buu yiri ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir inta soo muslimay akbar gaal dhulkan aynu ku noolnahay iminka aynu zamankeenu noolnahay gaalkii ugu weynaaye soo bixay in ilaah ma jiro wuxuu la yaabay kownkan goglan ee wax walba inaga ina leeyahay tafadal adaan ku diyaariye ya ibn aadam khalaqtu kull shay'in lak wa khalaqtuka li fala tashtaqil bima huwa lak bima anta huwa lah ya ibn aadam in aadanow wax walba kownkan adaan ku diyaariye adigana ana isu ka diyaariyay ana ku abuurtay ha ku mashquulin waxaan adiga ku diyaariyay oo ha kaga mashquulin waxaan adiga ku abuuray wa cibaadadeenu galayno wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ibn aadam kownko idil adu sakhir ku yahay adiguna waxaan ku abuurtay inaad icaabudo وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعزيزكم وحا ويعيد عابدا سوء إنك إنو أبورين وعابدنا رحمانكم وحا ويعيد وهشدو سوء إنك إنو أبورين قدوني عزيزكم ميو تاغيريي oo gurmad iyo hiilbu inaga inooga baahan yahay mise saboolnima ayuu dareemay عزيزku jallad qudratuhu zakiya iyo sadaqo inaga aruusada حاشا لله سبحانه وتعالى حاشا لله
أطت السماوات وحق لها أن تئط فوالله ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد منذ خلق الله السماوات والأرض يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك ربنا ما خلقناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك عركي عليس بولا عير يا بير وانو أقلما عركو عليس أوجي إنو لا عيرو ومحا دعي أفرفرو ميلا ديغو كما مدنا عركة إلا ملك ملائكة الرحمن كي سجود سيهي ما ننتو إلهي أبوري إلا يوم القيامة هول كلمة هي سجود سيه سبوح قدوس بوكو علعلنا هيا رحمانو عبادة أقلنت هي كمان صوبحين هول كلنا ما هيو إنو سجود سيهي مويان إنجينا ليري أفريل باتنك ساعدود نشنتو كذا كين أتك بهاش أو قرحيانا 8 دقيقة كسارة كين يريد دكسارة شنبو قبح كسيا وبشر يلا 20 دقيقة بقى سنة كينا رمضان بو يري صوم هذا الحولة هاي ستين الحج كتذكرتنا عمري قاعد مر هذا تزكي الله إذا هينا لبيه بربان كاقادي مركاسين وهاي سنة إنه نبوره سدنو أمة الإسلامي يا كاين تالا هنا سنكو تاغا يا قطر هذا فقط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية أي لعبادتنا والتذلل لنا waxaan idin abuuray buu yiri li'ibadatina addooma inaad ii noqotaan watadallul lana oo annaga isku kay duleysaan buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala oo muujisaan inaad sabool tihiin agtayda buu yiri Allah sanka taag amaama rabbika subhanahu wa ta'ala tadallul lah fooda dhulka u dhig iyaakum wal kibra الكبر كسكيل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حبا اسمه ذي هنا اسمه هذين عبادات كي مركا سي اين ugudanno waxaynu aqligeeni maan gaabka aha kuma keeni karno maxaynu u baahannahay inayna loo sheego innaga iyo ilaahay cilaaqada inoo dhaxaysaana waa nabiyo نبي الله إنه صادرة كتب الله إنه سوديبا قابك أي عابدة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمد والبوحة والله يبي ربأه إن الرسول أمد والبأدري أن اعبدوا الله محي قبنا يا نبيض هول كلام هيا إلهي عابدا والإلهي هلا عابدوا وهوش هيا واجتنبوا الطاغوت شيطان كفوا هذا فمنهم ضدكي أنبياء أن أدري وحاكمذا من هذا الله قالوا إلهي هنوني ومنهم وحاكمذا من حقت عليه الضلالة قال أيكو واجبتي بعض النمو فسيروا لغاية في الأرض للك فانظروا لغاية إندايا كيف كان عاقبة المكذبين كوا إبانيي عربتوا وحي كدام بيسي بل إيغا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ميانات سدد بن آيادا uga fahmaynin cilmiga taariikhda muslimiin ay akhrista aayada ma ka fahmaynin fasiru fil ardi dhulka lugeeya fanzuru eega kayfa kana aaqibatu al mukaththib umadihi idinka horeeyay ibeeniyay bal ciribtoodu waxay ku dambaysay bal akhrista malayna leemsayna lama laha fahma markaa علاقتي نجا إلهي إنه ده حيسوى عباده نبي بقى إنه صادرية وكا إلهي إنه شيء أنبياء إنه شيء جسا ما أنت آخر الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي كم دبيو رسول الله رسول الله ما أوفصدي سبحان ربك إنك ميت وإنهم ميتون نبي قواصع صلى الله عليه وسلم صحابة إلهي وقرأين يأكجوكان
nasiibkoodii way qaadeen rag baa nabi maxamed ku daba tukaday sala allahu calayhi wasalam rag buu nabi maxamed imaamu ahaa sala allahu calayhi wasalam oo waagu markuu beriyo intaanay nabiga soo arag aan meel kala mari jirin sala allahu calayhi wasalam yaa saxbataa yaa suxbataa socday nabiga taabiciintii baa markay arkeen saxaabadii ay soo gaadheen ayay taabiciintii waxay yidhaahdeen waryaadheen oo haddaanu adduunkii nabi maxamed ku haleeli weyne sala allahu calayhi wasalam aakhirana miyaad naga xigsanaysaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi mid ka midihi inaan idinkula tartami u dhowaanshaha nebiga loogu dhowaanayo aakhiro inaan idinkula tartami doono buu yidhi wallaahi inaan nabiga idinka hadhaynin buu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kun iyo dhowrkaa afartaa boqoloo sano kadib annagana sida taabicigaasaan leenahay nuriidu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama aakhira nabigeena aragnaa rabna sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar iyo asmaa iyo dadkii saalixiintaha macigooda inaan xilkoodii marka anna waa inaan qabanno marka booskoodii waa inaan buuxinna annaguna markaa hawshay qabanayeen waa inaan u kacnaa oo maxay qabanayeen maxay shaqadooda ahayd an icbudu llah ummadaasu diinta ilaahay loo sheego oo si daacada loogu sheego xoolahoodana la nabadgeliyo shardiga koowaad nebi kastuu ilaahay soo diro oo yidhaahda an icbudu llaha wajtanibu طaaguut waxa ku xigay wamaa as'alukum calayhi min ajriya ilaa rabbi adduun idinkama rabaanu hay amaahinina adduun kiina dhici maayo xoolihiina waxba ka dooni maayo gamba idinkama rabo maqaam idinkama rabo mansib idinkama rabo idoorta idinma lihi xilna ha ii dhiibanina xataa kuwa xilkiina idin haya xataa agtooda iman maaya laa nuriidu minhum shaya baynana wa baynakum kalimatu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulu llah cahdiga keliya naga dhexeeya waa kaas markaasa ilahi wuxuu leey subxaanahu wa tacaala war xilkaa qabta rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam gadaashii xilkii diinta qabta oo dhabarka maxootole u dhiga si aad nebiga ugu dhawaataan sala allahu calayhi wasalam nebiga waa la kulmi doonaa nin baa bukooday xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam xabiibkaa soo ziyaartay sala allahu calayhi wasalam markaasuu yihi sidee tah waa bukoonahay buu nebi allah waa bukaa buu yihi inay taydii noqono waa laga yaaba adduunka intaan joogo buu yihi rasuul allah intaan kaa maqanahay waa kuu soo hillooba qiyaamihii yowma alqiyaamuhu hadduu dhaco aakhira isugu yimaadana hadduuba ilaahay janno igeliyo buu yihi meesha aad joogto anigu soo gaari maayo casaa rabbuka an yabcahaka maqaaman maxmuuda adigu meel saraad nabi maxamed jannada ka degaysaa sala allahu alay halkeen kugu arkaa buu yihi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam xabiibku nabigu ninkii intuu eegay buu ku sala bishaarayso yuxsharu lmar'u maca man axab yuxsharu lmar'u maca man axab allahuma inaa nushhiduka ونشهد حملة عرشك والملائكة أجمعين أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بحديث كي مغلي صحابي بقى الشيء النبي وما أنت نكي وحكو يري بشاريسو قفك يوم القيامة وعلى لصو حشرية قفك جعليها qofka jeceshaha lagu soo xashrinaya dad kuwa heesaha iyo kuwa kubadaha iyo kuwa umada lu gooyay kalgacaylkoodu qalbiga haduu ka buuxo musiibo anbiyadii ilaahay iyo saxaabadii iyo al-ubbad wal-zuhad haduu qalbiga ku xiran yahayna caafimaad qabaad haysata Anas baa markaa loo sheegay oo lagu yiri nabigu maanta saasuu ma hubtaan buu haa أنس بن مالك بس قاضي نبي يجيب وتجي صار جيد هوس فردي بيقبوا عباه صلى الله عليه وسلم بس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها المرء يحشر مع من أحب رسول الله برخاتي كم نقول والله واقول جعلها بين محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر نوا جعلها بين عمر نوا جعلها بين برخاتي كم نقول أنا واقول جعلها بين أبا بكر نوا جعل إلههم مرخاتك النقاطنا نبي محمد نوا جعلنا أبو بكر نوا جعلنا عمر نوا أنس نوا جعلنا نقول إلههم عبودنا وحشر يا رب العالمين إلههم عبودنا وحشر يا رب العالمين
إله قبري ما كانوا دمنا إله روضة من رياض الجنة وقد ولا تجعلها حفرة من حفر النيران لذلك هوشها نبي محمد قداشي كالقعيل كالنبي وهي صلى الله عليه وسلم أفكا إلا قشة تكلية معها وحال هربا شقاء إلا قبطه شقاء إلا قبطه جهدي وإلا قبطه جهدي أنبياء إلهي وإلا قبطه مرقى والله صبره والله دقاته والله فافية ويرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميل والبا لغا لا دعو ميل والبا لغا لا دعو هير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم غعن كو غبد او هوي قروشنا اسكو تagtay النبي صلى الله عليه وسلم dadkii rumeeyeen nabiga la ugaarsanayo guriga ku dhuudhuumanaya يا صحابي صحابة كمدا سو عرري النبي صلى الله عليه وسلم كعبة هركيدا هرسنيا بستهيسين هو شيرتك سو قيلي صحابي يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا رسول الله حنون بأنها يبي ولا سكوك هاي تجيه إلهي ما نو بريد بيقول كربض هنجا فيده إلهي ما نو بريد إنه إلهي نو هيليو كاسو النبي بستيس كقاعدة ما كاسو خباب إنه أرتبوها صحابي ويا خباب محاد داعي أذونا يا رسول الله وأنا النبي محمد وقال هذا صلى الله زي ما أنت المسلمين تقالوا النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أنت اللي أنت يحنونك مد النبي محمد هاي ستمات إله قادركم باوك إله قادركم باوك عنوك مسلمين يا ويح نفسي يا ويح نفسي كانت أموركم شتى وحكم أمر الناس فاجتمع قالوا إذا الوحو هي مسلم عقتين وهوز قليل مسلمين لك لقيبي والله اسكت دري وسقالي كنت على الله كلا سبيي سقالي كنت باصبور لو كلا سبيي يجي لسكو وذن ها هنتدو دي خيرات كودينا لقادنا يدمر كودينا لفولي سبحان ربك يا حسرة على العباد يا حسرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا دودي أكعي لها يا أمة بدبادين لها يا هركعي لها يجي ما كان دمان لا واسكم بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا الله لنا أنتوا يا ربيل أركان خبابه أتكيست بيقولوا صبرا ومديه إذن كهريي أحد كي أنت الله يروه أيام مضحة مفرق رأسه من شهر أنت الله كان الله بالله كلا جري جري دين تكبح يكبح مايو كمان يبح جري دين تود يجوا هاشتي جو يجري إلهي بان كل أرتبي النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بان كل أرتبي لتسيرن الضعناء من حضرموت إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون إلهي بان كل أرتبي وأنا محمد وقعنكم قبض روح الدمر كأيه رتيدا صار بيقول حذر موت سعدال كي كسو قادو إلا صنعاء ويلوغين إسلام كجاري بيقول خباب بن أرتو إلهي ما هعد كلك بقي ميسو يي أي وقبق أريد موياني ولكنكم تستعجلون ودقدق سابير خباب وأتكيس بيقول إن الله زوى لي الأرض أي ضمها وجمعها حديثي صحيحة إلهي دولكو دنبو نبيغو يري غعمهaygu soo galiyo dhulka oo idil ayu gacmahayga soo galiyay ay dhammaha wa jamaaha wasayablughu mulku ummati ma zuwiya li dhulka ilaahay gacantayda soo galiyay ummadayda mulkigooda gaari doono dhulka oo idil bidhulli dhalil aw bi'izz aziz dul lagu duleeyo gaal عز يا الشرف لو قاضوا انت النبي محمد جعل صلى الله عليه وسلم
ballamuhu nebigu inoo qaaday sala allahu calayhi wasalam ballantaasi maxay ku imani ma fadhi bay ku iman ma qabaa'il iyo reereere iscunayay ku iman ma arrimahan aynu ku mashquulsannahay ku iman muxuu ku iman guusha ilaahay subxaanahu wa tacaala in tansuru llaha yansurkum waxay ku imani ilaahay inuu quluubteena taalacdo ma aha garhkan iyo cimaamadahan aynu ma aha ilaahay waa inuu quluubteena taalacdaa subxaanah deedna uu arkaa inaynu nahay dad u qalma gurmad ilaahay hiil ilaahay ilaahayna inagu aamino kitaabkiisa iyo waxyigiisa qof lagu aamini waayo dhowr boqol oo kun oo dollar xil uu qabtay lagu aamini waayo dejiyey ma kitaab qur'aana lagu aamini ma fogo guusha ilaahay xaasha lilah ilaahayna islaamka ma nibca xaasha lilah wallaala waxaa dhiig daadanaya dhibtaa dhacaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kurboonaya xadiidkii nabiga saxiix ahaa baa ii sheegay nabigu inuu ka kurboonayo ilaahay inuu ka kurboon dhibsanaya alla subxaanahu wa taala raalina alla inaanu ka ahayn ilaahay muxuu rabaa markaa subxaanahu wa tacaala ummat alislaam tuubuu ilaa rabbikum tuubuu ilaa rabbikum cahdigii nabigiina qaata ballantii diintiina qaato quluubtiinu quluub walaala noqda kalgacayl isku haya ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أمد اسكو طحن سيدا تصبح حرير سن أون اسيسين أون اسقور سنين إن أكرمكم عند الله أتقاكم سا أمد اسكو بحنيزة وكا واقع نولد لغو أركو ayuu gurmadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo dhiibahaya gaalna waa jabaya laa shaka fi hada hawsha iyo xilka markaa ina saara annaga waxaa weeye marka annagoo jidkii nebi maxamed rabna inaan raacno sala allahu calayhi wasalam ummadda qalbigoodii la dhiso la nooleeyo maanka iyo caqligoodii la baraarujiyo ka alla yidhaahdo tuubu ilaa rabbikum subxaanahu wa tacaala cibaado haynu ilaahay fooda dhulka u dhigno aynu dib isku noolayna inagu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam culammadu iyo ducaaddu xilkii nebi maxamed dhaxalkii nebi maxamed bay hayaan sala allahu calayhi wasalam hawl yar ma aha ay wallaahi hawl yar ma aha qofku ilaahay garansiiyo hawl yar ma aha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday mimbarka nebi maxamed khudbadda jimcaha uu ka akhriyi jiray saddex buu ahaa saddex darajo ayuu ahaa darajada ugu sarreysuu nebigu istaagi jiru ka khudbadeyn jiray khudbadda jimcaha rasuulka tiisii baa timid sala allahu calayhi wasalam waa kii markii hore geed jirriddii ayaa masaajidka u yaallay khudbadda jimcaha koowaad markuu dhammeeyo uu nasanayo geedka jirridduu ku nasan jiray oo lasoo jaray markaasuu khudbadda labaad akhriyi jiray dumar saxaabadii nebi maxamed ka mid ah nin u shaqayn jiroo najaar ahaa ayay ku tiri nebiga u samee kursi 3 darajo ahoo khudbadda jimcaha uu ku akhriyo mimbarkii baa la sameeyey nebiga hadiyad loogu keenay sala allahu calayhi wasalam geedkii uu ku fadhiisan jiray jiriddiisuna meeshiisii buu yaallaa maalintii koowaad uu khudbadda uu ku akhriyay nebigu mimbarka sala allahu calayhi wasalam ayaa saxaabadii wada maqlaya ayaa waxay maqleen geedkii jiridduu nebigu ku fadhiisan jiray sal sallam oo gunuunacaya oo gunuusaya oo ilmaynaya ooyaya waa geed jamaad ayaa nebi maxamed tabayay sala allahu calayhi wasalam markaasuu soo daadigay nebigu waasuu geedkii gacanta saaray aamus adkayso laba mid kala dooro buu yidhi inaan ilaahay kuu baryo ood noqotid geedka jannada geed ka mida garsun min khiraasi iljanna iyo inaan soo noqdo kugu fadhiista adiga oon kugu nasto xata aljamaad looxiye ayaa nebi maxamed tabaya ma inagaan tabay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yaa lahfa nafsi rasuulka tiisii bay noqotay abu bakr baa xilkii muslimiinta qabtay khudbaddii jimcuhiis yidhi akhri abu bakr wuxuu ka xishooday abu bakr
علماء وهذا حل كان هايسان انتو اللي يجي أبو بكر روحه كحشوضي مين والنبي محمد يستاجين ويستاجوا صلى الله عليه وسلم فكاسو كسود دادقي درجة دي لبعض بك خد بدي حرمة وحرمين أيوه لو النبي محمد لبل لقود مين ودقي أبو بكر تيسي بين نقطة عمر باحل كي المسلمين تقبت رضي الله عن الجميع أبو عمر نوا كحشوضي أبو بكر ميل ويستاجي اثنين ويستاجوا أبو بكر خليل رسول الله وصاحبه درجة دي صدحات عمر كخد بدي يجري عمر بقى للدلي صلاة الفجر يسووا مدة تكية يا للدلي عمر عثمان بن عفان بمدة دورة عثمان باخذ مدة جمعه وهو الرئيس يصير آخر صدحتي درجة ولا جسوا دادك تي رسول الله تي أبو بكر يتي عمر ميل الله ميل يستاجوا عثمان قروي مركاسو دب وقول نقضي ماشي النبي وكبل صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله أحمده مركو يريد وح الله لو وكهد للقروي عثمان أغلق عليه حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول بصح ماشي النبي محمد كهن لي تاج انتهى مركاسو لبك المدود يريد إنكم إلى إمام فعال أحوج منه إلى إمام قوال ولا تأتينكم الخطب كما كانت تأتيكم سابقا أقيم الصلاة وخطبتي أبد الآخرين وقابل بالي تاريخ الإسلام أخي بقول سودادكم أخي هذا هو السعداء العلماء ورثة الأنبياء الدعاة ورثة الأنبياء ماشي النبي محمد جوغي بعد جوغ تاي حلكي النبي محمد نبركوني دينتها كم عاشق diinta ku shaqaysanin diinta ummadda ha ugu soo dhuumanin gan ummadda ha ku xadin cimaamad ummadda ha ku xadin ittaqillah ya ibadallah ittaqillah ya akhi iska saar oo iska xiir ittaqillah dadku yaaray oran wadaadaduna ma tuugba la ilaha illa allah muhammad rasul ittaqillah ya rajul maqam al-anbiya ومقام سروي مقام سروي ذلك صحابة تابعين تيؤذني شعورا بالمسؤولية أي ازدرهم أيان حلك أنبياء إني هيان صبون نمو ينم والبوا شقي سنجري صبون شقي سنة صحيح مسلم والآخر ذا صحيح مسلم والآخر ذا إمام مسلم بخار بولها تكاب بولها تقول كده سوق صبون شقي سنجري كتاب كان وادي جري تجدون الإمام الماوردي بيولة بوها بيولة نبرك انتو بيها كو قاضو أي أمد أشو شو بيجري بيها دراهم حلالة مركو صهر بكتاب كديك جري أبو حنيفة النعمان كان بزازا نركوارات كو يبين جري إمام مالك بن أنس صاحب الموطأ في المدينة تاجر بوها شقيستا إمام الشافعي ومذهب كيزة هاي ستان صدح جار بوكعي بخار بكلها قاهرة تكالوا أشقي سجر تجدون فلان الخصاف كما طلبوها خصاف كبو مركة طلبوا ركعة ساري جري تجدون الإمام القدوري دسود أي دمر كريان حقوق كريان مركة ديسمان أوتو توسي جري تجدون الإمام القفال قفل هذا جوابه هجاجين جري تجدون السمان سبق لبوها تجدون الزيات سليد لأيوها ummad wada shaqaysanaysa oo tan soo dhuumanaynin may xalaal markay soo shaqaystaan ayaa kutubta la akhrinaya oo muxaadarooyinka la galaya oo duruusta la galaya ummadda jeebkooduna waad kala badbaadaysaa shil isku manhidin wax aad tartid mooyaan adigu wuxuu eegin al-ibaada anwaac badan bay leedahay suwar fara badan bay leedahay ilaahay oo la baryaa waa cibaado وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي النبي نوحي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة إلهي الله برياء وعبادة قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم ورمسا العابد إمسا إله بعد الله ذهي بوكيو كوي سنة ميضا لهذا إمسا إله بعد الله ذهي تضبع عابد أبي وتضبع إله بعد الله تضبع إله بعد الله يهبي إيه كلا شيء يقول 6 في الأرض و1 في السماء بيقول
caabudo toddobada ilaahay aan caabudo buu yiri lix dhulkay joogaan buu yiri midna cirka markaasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam waa yahay faman liraghabika wa lirahabika markaad baqdid iyo markaad wax dooniba keed barida alladhi fi as-samaa alladhi fi as-samaa markuu arinku adkaado lixda dhagxantu waxba taro الذي في السماء الدعاء هو العباد وقاسوا النبي يقول هذه هول بقى هالكا أي تحي لحظة مسكدينا بيقول لك حنت هذا بحطني ما يعني ها بيقول ها أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويسمع منه من لرغبك ومن لرهبك ستة في الأرض واحد في السماء واحد في السماء عبسد إلهي اللي قبقى مكا أقبل الدعاء دي صلاة مكا أقبل صونك مكا أقبل زكاة مكا أقبل دين تطلب مكاتي ورور كاسي وعباده وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا بقى الله سبحانه وتعالى حتى المؤمنين تهين أكتيس محاءة رجال إله اللي وها جاجيو والمؤمن بارنا هيو الحمد لله رب العالمين وحين عنا وكتوبت كينا يو إن شاء الله تعالى مسلمين تحهم قلبي وقوم هينو صلاة هو هينا إن شاء الله تعالى يو إلهينا ضيع ما يده وباب الرجاء باب كي كلده ها الآخر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الرجاء وعباده الاستعانة إلى هود كالمو ويديست وعلى روحك قوي ماذا إياك نعبد وإياك نستعين وعبادة كذلك وعبادة سوهز قالها هي الصلاة والله بضياء إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا رب يا رسول الله من قورمان إلهي وقل له وهي هن دعاء بضياء مركز سجوسن تهي بيوتي واسجدها عيد ما حيد واسجد ده واسجد واقترب سو عيد مها واسجد سجود هتسوي دواتي دي أي إلهي إلا الله سبحانه وتعالى هذه مدحنا ما توضن كمذي madaxdeen soo kuween lacag badan ma hayaane kuwa waaweydi kuwa waxa baasha badan hayade ya haday ku yiraahdaan albaabka hadaad ka soo dhawaatid check ba yaalood qaadanaysa ka waran waxay sameyn lahayd ya awowgay ba u taag waayay reer gablay sheekh maxamed yare raxmatullaahi alayh ayaa u taag waa bari horba ku salaadii buu u taag waayay hortukada waa u jarjaraan markaasuu maalin wacdeeyay waryaarahay buu war mar kastoo sujuudaan haddii shilin idinku dhagayo hal shilini haddii idinku dhagayo markaad soo kacdaan de salaada meedin dayseynay ilaahay maad ka xishootaan tukataan buu ku yiri kelmadii ba ku weynaatay war sheekhu maanta sawka markaas leeyahay markaas masaajidka aad u camirmay baa masaajidka aad muxuu talo wacdo wasjud waqtarib sujuud had soo dhawaatide waa cibaado nabigu sallallahu alayhi wasallam kurbad kasto haysata xanuun walba oo haysta muxuu ku qaboobi jiray الصلاة صدح بان أدونكينا كجعل هيبل حبب إلي من دنياكم ثلاثة أدونكينا صدح بان كجعل هيبل خرط الضمر وجعل هيبل النبي صلى الله عليه وسلم والله نقوم جعل يا لو جعلنا سماء نقولنا بالحلال ده هذا أبقى إنه مقليانا هذا ورجعلنا وجعلنا النساء وجعلنا ما شاء الله الله ينبض يا رب العالمين بالحلال إن شاء الله وجعلها النبي قدمك صلى الله عليه وسلم كو الله مثل بعضنا وجعلها دون كينو عذرك يؤذقنا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم عربكم لبدا مركو شيغي بيوري وجعلت قرة عيني في الصلاة لبدا كله وحي حبي وبير حبي بقى لكن بير وجعلت قرة عيني في الصلاة ما إيش هيدا كنا قاعد كو قرحة لكن مركان الله أكبر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال يا بلال ونقول راحيب النبي ورجل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مركو عاشي واحد مركو النبي كربلوبو أرن قبطو فزع إلى الصلاة
salaadu u kici jiray bay tiri xaggiisa caasha la weydiiyey xadiidkii saxiixa ahaa habeenkii kuugu cajabta badnaa ee nebi maxamed aad aragtay nooga sheekeen waa taabiciintii dee ayaa la caashaa bal habeen nooga waran nebiga addee habeen habeenadeedii ka mida buu ugu yimid buu nebigu sala allahu calayhi wasalam anna dumar siduu isugu diyaarin jiray odaygood baan isku diyaaray bay tiri habeenkii markaa soo dhowaade ayuu igu yidhi bay tiri nebigu sala allahu alay wasalam caashaay caawa idaa buu igu yidhi bay tiri caashaay caawa idaa ilaahay baan doonaya isu keliyeysanay caashaay idaa markaasa waxay tiri yaa rasuula allah uxibu qurbak agtaada inaan ka dhawaado waan jecelahay bay tiri agtaada inaan ka dhawaado waan jecelahay wixii ku raali gelinay inaan yeelana waan jecelahay caaway daa buu yidhi caasha daciinii lirabbi kelmaddaasuu nebigu isticmaal daciinii lirabbi caasha caawa ilaahay ida iska nabadgelis hoostaan ka daawanaya kaasuu bilaabay ti nebigu inuu tukado sala allahu calayhi wasalam qur-aan buu ku tukanayaa bay tiri habeenkii waa waday bay tiri ilin baa nebiga ka socota bay tiri sala allahu calayhi wasalam ilaa uu nebigu garhkiisii shariifka ha qooyey bay tiri sala allahu calayhi wasalam waa kacay bay tiri haddana uu wado salaadii ilaa uu nebigu guntigiisa uu qooyey ilintii ka da-aysay sala allahu calayhi wasalam haddana waa waday bay tiri salaadii ilaa uu dhulkii ku dhibcay ilintii nebiga ka da-aysay bay tiri sala allahu calayhi wasalam ilaa bilaali salaadii nebiga ugu aqimo asalaata yaa rasuula allah asalaa nebigii baa furay bilaal baa nebigii ilmeynaya arkay salaadiina waa ugu yeedho waa fajarkii markaasuu bilaal caasha ku yidhi caasha xalay maxaa nebiga ku dhacay xalay maxaa nebiga ku dhacay sala allahu calayhi wasalam xalay odhan saasi uu ooyey bay tiri nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam rasuul ilaahiisa ku xidhan subxaanahu watacaala ogna raallinimada ilaahay waxa ay tahay asalaa waa cibaadooyinka ugu muhiimsanay tahay inaynu ilaashanno ina salaata kaanat cala almu'miniina azakaa cibaado qaali ah wey oo ilaahayna raaligelinteedii ku xidhan tahay mujtamacan saboolnimada in lagaga saaraana ay ku xidhan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya yowm laa baycun fiihi walaa khulla kalkaafiruuna hum الظaalimuun duulka iimaanka laga helayo waxaan wax idinka siiyey wax ka bixiya buu yidhi allah subxaanah intaana idiin iman maalin aydaan xoolo isku furan karaynin saaxiib sokeeyo wax kuu taraana aanu jirin ergo cid laga aqbalaana aana jirin kaafiriintuna iyagaaba dhaalimiinta buu yidhi allah subxaanahu watacaala alxaj cibaadooy waaweyn walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waman kafara ay taraka alxaja faina allaha ganiyu can alcaalamiin ilahay inooma baahna inagaa u baahan yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى allah wallahu huwa alganiyu اlxamiid in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqi jadiid wama dalika calى اllahi bcaziiz taabiciyiintii iyo saxaabadii waxay aad uga ooyi jireen haddaad ka jeedsataan manhajka ilaahay wuu idin rogi ummad kaluu keensan oo isaga caabuda ilaaha diintaa inagu hanuuniyey haddaynu qaadan weyno oynu ku dhaqmi weyno oynu ku faani weyno oynu kor u yeeli weyno ilaahay maxay ku tahay inuu ina rogo oo ummad kaloo isaga caabudo uu keeno ilahay maxay ku tahay subxaanahu watacaala qolooyinkaa reer yurubiyaankaan la joognay markaanu islaamka u sheegayno eenu ilaahay uga sheekeyn nebiga uga sheekeyno islaamka taarikhda uga sheekeyno ayaa waxay nagu yidhaahdaan wanaaggan aad ka sheekeynaysaan islaamku hadduu yahay sidan aad leedihiin muxuu idinka muslimiina idinka dhex muuqan laayahay wanaaggan aad ka sheekeynaysaan waxalaala waxaanu ku hadalna aanu garan weynaa xishood yaxyax khajal cilmigaad uga sheekeynaysaa iyo islaamku siduu cilmiga u qiimeeyey aayaadkii qur-aanka aad ka sheekeynaysaa markaasay ku odhanayaan halkeed maanta cilmiga adduunka aad ka joogtaa cadaaladdaad uga sheekeynaysaa walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa markaasay ku odhanayaan ma idinka cadaalad qur-aankiina saa yidhi ha qur-aanku cadaaladdu aad uga maxaad isugu cadaalad fali weydeen soo idinkan iswada cunay iswada calashaday idinkoo qaxootiya hoosteeda ku soo dhacay bal maxaad ku odhan maada tafcal maada taquul ummaddii nebi maxamed ilaahay ugu talagalay inay tusaalaha adduunka ahaato oo gaalkii uu leeyahay maxaad islaamkii ugu dhaqmi laadiin
mid baa noo yimid waan muslimayaa buu ahlan wa sahlan shahaadada loo qabtaa intaan shahaadii loo qaban baa wuxuu yidhi laakiin waxaan doonayaa buu yidhi hee islaamka cali oo kale markaasaa ku war caliga uu sheegaya waa ayo markaasuu yidhi waa ayo cali waa ayaba ku dhahay markaasaa wuxuu yidhi cali waa my best friend waa saaxiibkay deris baan u nahay islaamkiisoo kale aan doonayaa buu yidhi markaasaan ku islaamkiisu waa sidee de khamrigu ila cabaa buu yidhi dhiskuhu ila joogaa buu yidhi halkaasuu igula tuntaa buu yidhi day and night haddana waa muslim anuu mid islaamka aan dhibta badnayn ee cali oo kale aan doonayaa buu xasbuna allah waana magis cali bal maxaad odhan cali waa gaal kuma odhan kartid waa muslim bal maxaad ku odhan war cali muslim baa miyaad ku odhan ma odhan kartid waa muslim waa muwaxid macaasi buu garan imika war waa caasi iyo xoogaa diintaa ku yar aad uga dhaadhicine kan maxamedkee tukada kan ku daya baan ku odhi mid meesha ka eedaami jiray oo iska darwiishahayo masaajidka dadka ku xidhnaayo iska ahlullaahiga ahaa kan maxamed ka waran baan ku odhi kan baa u raayne markaasi maxamed waa de kan de ka yaree meesha adeer kan raac baa ku odhi caligii dhigata hadda waa maxay ايش المشكله innagii baa waxaynu muslim islaamkii maxay ku nahay fitna gaashaan baynu la hor joognaa albaabkii islaamka dhaqankii muslimiintu maanta markaasay adduunkii leenahay waana kale ha imanina ninkii muslimay faransiisku ku muslimay kitaabkii intuu akhriyay quraankii iyo isagoo iman ba dhulkeena markaasuu wadanada muslimiinta yimid iyagoo iswada gaagaabinaya gamta isku wada haya markaasuu yidhi dhegayso alxamdu lilaahi aladi hadaanii lilislaam qabla an ara lmuslimiin buu yidhi ilaahay diinta qalbigayga dhigay buu yidhi intaanan muslimiinta afcaashooda arag ayaa mahadle buu yidhi subxaanahu wa tacaala marka xilkayna saaran markaa waa maxay xilkayna saaran waxa weeye diintan aynu akrinayna iyo nusuustan inaynu ku dhaqanno maxay noqono maxay tusaale xay ah inaan noqono oo cadowga ina nacebaynu kala diinta nahay inoo qiro aqoon durugsan kala dambayn xushmad nadaafad cadaalad sinaan inoo qiro isagoo inaga diin duwan inuu ina yidhaahdo dadkaasi diintoodu gacantahoo si fiican bay ugu dhaqmaan inayna ayaa inaga asala cibaadooyinku ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay ilaahay wuxuu ugu jecel yahay cibaadooyinku ina faray kuwa la yidhaahdo alfaraa'id waajibaadka ayuu ilaahay ugu jecel yahay kadibna sunanka xadiidka in la dhegeyso nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wa xadiis saxiixa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofka la dagaalama ama cadow u noqdo weli awliyadayda ka mid ah wallaahi baan ku dhaartay buu ilaahay oo xaqiiqo waxa ah waxaan ogeysiiyey inaan dagaal kula jiro muslim muwaxidihi ha kaa nabad galo man kufu can man qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah cidda tidhi ha idinka nabad gashuu nebi maxamed yihi sala allahu calayhi wasalam laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llahi dadka tidhi waa awliyada ilaahay ilaahay awliyadiisa weeyi ilaahay awliyadiisa u nabadgeli subxaanahu wa tacaala alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu وكانوا يتقون لا إله إلا الله أوركيس كم جرتد ما دلاعن ما جيحنين ها أكان نبض من عادى لي قفك علاد كقاذا ولي أولياء إذا كم ذهبين والله بان كنا أرتي وحن كوش يجيبين إن دجال كقول جيرو الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي أدون كي يومسو نواذا وحن كجعيل بدنا هاي مما افترضت عليه وحي أن كفرض يالي فرائدك الشهادة أركان الإسلام كي أركان الإيمان كي فرائد وما يزال كزول ما يعبدي الضون كيغو كلمة بلاك صفة الإضافة بلاك إلهي بأسوك إضافيي ها عبدي أي الضون كيغي اللهم اجعلنا من عبادك يا رب العالمين وما يزال كمزول عبدي أدون كيقول يتقرب إلي بالنوافل وحو لما يستفرد كيبو لما يستفرد محوكو حجينا يا سنن كمزول إنو سنن يقصو نوادو مركو فرائد كي قلتي حتى أحبه
إلا أن جعل ذبي الله سبحانه وتعالى ويانا هي أنا مكو إلها أنا جعلاني من أنا بحانا هدوكا كأحي وماذا أساوي قيمة يقوى محي عزيزكم مركو فوق 7 سماوات جعلاني ها فإذا أحببته حتى جعلاده وحن نقضى بيولي مقل كيسي وحن نقضى بيولي أرقيسي وحن نقضى بيولي كعميهيسي وحن نقضى بيولي لوهيسي وإن سألني هدو إبريانا وان سيا هدو إيغا مغان قالنا وان مغان قالي يا بيولي الله بالترتيب هو ينيسن إلهي وين قارسين كرا سبحانه وتعالى هذه العبادة إن أبضومها إلهي نقول إلهي هاي نقدق يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إلهي دنبينا هداف ودنبي والدين تن هداف إلهي معلمين تي وحنا صورك أنت النور الله بركة أنت دمتنا قبرك الله ونوريو والدين تيدا أنت النور إلهي هبركة أنت دمتنا قبرك الله ونوريو إله خاتم هذا نوصك إله كلمة لا إله إلا الله نقدر إله قلبي حماها كبير شركك يا بدعة يا غفلة يا حقدك يا حسدك إله قلوبتنا كبير يا رب العالمين إله قلوبتنا والعالم كبوح يا رب العالمين إله دل يرد النص وحنون يا رب العالمين إله حبلها النص وحنون إله حماها نجا إلى يا رب العالمين إله أنت أذرال كتهاي مدح نوجدك إله أنت أذكر رالي جليه مدح نوجدك كوي مغلق أطيعنا النجا رب ونجدك يا رب العالمين إن الله على أنت وناجي يهرم مركي كتها لنا إله يوقع عن قبو حماها يا بلد المسلمين أنت كتها لنا سنة الله ونجا قبو يا رب العالمين إله النبي محمد يوم القيامة شفيع نوجدك صحابة معي يقول يا نبي محمد نصو حشر يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة